maanta oo ay taariikhdu tahay 4 Juun 2020 waxaa isugu yimid howlka shirarka masaajidka Jami Mosque dad mas'uuliin ah culimo hay'ado farabadan oo muslimiinta matala imaamiyo waxaa laga tashanayay dawladda oo soo jeedisay sidii masaajidda loo furi lahaa iyo muslimiintu inay tala ka keenaan sidii la isu waafajin lahaa cudurka in la iska ilaaliyo masaajidiina la furo intaas markii laga tashanayay waxa la isla ku raacay ama la isku waafaqay qodobo loo baahan yahay in masaajidda markii dawladdu ku dhawaaqdo furitaankooda in ay ilaaliyaan gudiyada masaajidda waxa la isla qaatay oo laga rabaa in gudiyada masaajidda iyo imaamiyada mas'uuliyadeeda ay qaataan dadkana lagu wacyigeliyo in lagu dadaalo masaajidda dadku markay galayaan in gacmaha la dhaqdo maadadan jeermiska dishana insha Allah ta'ala la isticmaalo in lagu dadaalo masaajidda nadaafadooda xilli walba oo la nadiifiyo in dadku markay soo galayaan darajada xaraarada ama kuleylka la cabiro intayna masaajidka soo galin gudiyada masaajidu waa inay xaqiijiyaan in kaabedka lagu tukanayo dadku ay ku sujuudayaan haddii la qaadi karana la qaado haddii kalena in si joogto ah loo nadiifiyo si uusan dadka cudurka ugu gudbinin gudiyada sidoo kale masaajidda waa inay xaqiijiyaan qalabka masaajidda dhex yaala sida kutubta iyo wixii la mid ah in aysan dadku isugu gudbinin xanuunka sidii kolba loo farsamayn karo ama in laga saaro ama masaajidka ama in la xidho si in loo farsameeyo sidoo kale haddii masaajidka floor meel yani wax lagu tukanayo ayadana mar walba in saladaha gadaashooda la nadiifiyo la hagaajiyo labada ruux isgarab taagan inay kala fogaadaan 1 mitir iyo badh inay isu jirsadaan oo spaceka ay kala fogaadaan maamulada masaajidda sidoo kale qaybaha banaanka ee lagu tukanayo haddii masaajidku uu barsaleeyahay ama banaankuna uu leeyahay in la suurto geliyo sidoo kale masaajidda in darishadaha iyo albaabada mar walba ay furnaadaan sidoo kale in musqulaha iyo goobaha weysada totally la xidho oo aan la furin sidoo kale talooyinka ka imaanaya hay'adaha caafimaadka iyo muxuu ahaayay dhaqaatiirta muslimiinta in sidoo kale la dhaqan geliyo mas'uuliyadana ay qaataan gudiyada masaajiddu qaataan hay'adaha muslimiinta dawladda kala shaqeeya arrimahan xanuunka iyaguna sidoo kale in ay muxuu ahay ka warhayaan oo iyaga laga xiriiro oo ay dabagal ku sameeyaan in codsi waxa ku jira dawladdu ay taageero u fudiso masaajidda sidii ay u fulin lahaayeen qodobadaas la soo sheegay muhiimaddu wax weeyaan inaan inaga hadaan nahay dadka muslimiinta aan qaadano mas'uuliyadda masaajidii haddii la furo inaynu masaajidiina ku tukanno ku cibaadaysano inoo furnaato isla markaana inaynu qaadano inaga mas'uuliyadda sidii aynu xanuunkaas uga taxadari lahayn dadku inaysan isu gudbinin dadka da'da ah iyo dadka xanuunada khaaska qaba inaynu masaajidda imaanin oo guryahooda isaga tukadaan sidoo kale ruuxa dareema inuu xanuunkaasi calaamaadkiisa isku arka inuusan sidoo kale masaajidda imaanin gurigiisa ku tukado qodobadaasi ayaa la isla soo dhaweeyay waana wixii inaga markii masaajidda laynoo furo laynaga doonayo inaynu ilaalino dawladda ayaa loo gudbin doonaa insha Allah ta'ala codsatay in la soo gudbiyo qodobadaas iyagoo faahfaahsan markii ay dawladdu soo ogolaatana insha Allah ta'ala inaga laynooga baahan yahay inaynu fulino waad maasantihiin arintaana process-kada socda gudiya loo saaray muxuu ahaay waa la daba socdaa
berri ayaa insha Allah tacaala kulan dawladda la yeelan doona kadibna madaxweynaha loo gudbin doona insha Allah tacaala si loo soo ogolaado aad baad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.